afhayeenka xukuumadda mudane maxamed ibraahim macalimo ayaa dhaawiciisa maanta loo qaaday dalka dibadiisa waxaana ku sagootiyay garoonka aadan cadde xubno ka tirsan golaha wasiirada mas-uuliyiinta xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ballan qaaday in xukuumaddu ay dadaal ku bixin doonto baxnaaninta dhaawaca afhayeenka oo maalinimadii shalay ahayd qof naftiyahaliga ah la beegsaday qarax gaari uu watay. agaasimaha warfaafinta xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane liibaan cabdi cali oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay dhaawaca afhayeenka isagoona sheegay in xaaladiisa ay soo hagaagayso haatanna loo qaadayo dalka Turkiga si halkaasi loogu sameeyo daaweyn dheeraad ah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وزير ganacsiga xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xogayaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee joogtada ah dhammaan mas'uuliyiinta iyo agaasimayaasha bahda saxaafadda wariyaasha dhammaan dadka kala duwan ee ka soo qayb galay ama halkan ku sugan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ku sugannahay oo aan halkan u joognaa sagootinta walaalkeen maxamed ibraahim macalimo afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo shalay fal argagixisanimo uu dhaawac ka soo gaaray kaas oo maanta loo qaaday waddanka Turkiga si halkaas loogu soo daweeyo. macalimo sidaad ka waraysin dhaawaca soo gaaray sidaan kalaba warbaahinta la wadaagnay dhaawacaasi ma aha mid noloshiisa hadda khatar ku ah oo life threatening ah hase yeeshee wuxuu u baahan yahay baxnaano iyo ka warqab dheeri ah. waxaan rabnaa inaan halkan uga mahad celinno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo markii uu shilkani ku dhacay afhayeenka xukuumadda amar ku bixiyay in wax kasta oo ay qaadato ama si kasta oo ay xaaladdu tahayba maxamed ibraahim macalimo loo fidiyo gurmadka uu u baahan yahay dhinaca caafimaadka ah. sidoo kale waxaan mahad gaar ah u jeedinaynaa مسؤوليين كلا دوان ساعدها بدن مسؤول جيدة وقت بدن نجليه إن تردارك كاسي أمر كاسر الزارو بحيين لكلية أو معلم وسفر عافيمات سيدك دقة حلوه قاضو السجا إيو منك أضجع لأن يرد الدرول كوها ولا بدو ذبح حتى لو قاعد ذلك تركيا وحاوشاس كالم وين كقادرون كي أو مع العلم مدن حقيقة جوكتا أي حفيزك كوحجان كيسا وزير كجناعسيا مسؤولين كلا دوان أو دولة الصومالية كترسن بعض الصحافة أجاسمياشة ورباهنتا ماذا حبنان ورباهنتا كلا قرن كلية دمان بعض الصحافة كل شيء الصومالية نحن كمان علينا دورتي أي كقاتين أو مهم سنة سعادة أي لقرب تاجيه المعلمو كنت وحنو رجينا إنسجا إن صحيح إن أي صدق سهو بكسودان عافيمات كودا إيه حالات كودا عافيمات سيدا أي حدا تهدي في قلنا إلى ذا وحنا رجينا سيدا ورقصيها بدل لأنه عجيب سنسوق تاجو شعب الصومالي وحنا كعطلنا إن دعاء أي كسوق الميان معلم وانين كباسي فيسكال جواندال كانوا كسوق شقيقي macno weyn ugu fadhiya qaranka dhaawacyo badan iyo dhibaatooyin badan u soo mutay una dhabar adeegay inuu dalkiisa u sii shaqeeyo waxaan rajaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu miisaankiisa xasanaadka u saaro wixii uu dalkan u soo qabtay waxaan sidoo kale rajaynaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan leh uga kaco dhaawacan isaga ah marka ugu dambeyn waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed marka la xusuusiyo inay u soo duceeyaan waxaan rajaynaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan leh u soo noqdo isaga oo lugihiisa ku socda oo caafimaadkiisa uu taam yahay oo Ilaahay uu siiyo caafimaad dhiigga iyo dhimirka iyo dhuuxaba gala waxaan rajaynaynaa insha Allah in arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan u dhacdo waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay in loo diro safar caafimaad oo ra'iisul ugu horeeyo iyo dadka Soomaaliyeed oo garabka u ahaa intaba. ugu dambeyntii dhaawaca soo gaaray maxamed ibraahim macalimo ayaa ah mid ka fudud sidii ay wax u dhaceen isla markaasina uu jiro jab ka soo gaaray lug iyo dhaawacyo kale oo fudud mana ahan markii ugu horeysay oo sidaan oo kale uu ku dhaawacmo qarax ka dhacay magaalada Muqdisho dhowr jeer oo hore ayaa jirtay in maxamed ibraahim macalimo ay dhaawacyo ka soo gaareen qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Atore, Nairobi.